السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بان إذن سلام يا صاحبي halkan waa channelka xogta dalka kusoo dhawaada qodobada aan idiin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya madaxweyne waare oo amar dul dhigay guddiga ka hortagga caabuqa COVID-19 magaalada Beledweyne oo lagu arkay dad hor leh oo qaba caabuqa COVID-19 maamulka degmada Cadaado oo amar cusub soo saaray muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Afrika gudoomiye Cumar Filish oo ku baxay shaqaqo ka dhacday gudaha magaalada caasimadda Muqdisho dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay ku dileen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab midowga Yurub oo walaac ka muujiyay dib u dhac ku yimid doorashada dalkeena Soomaaliya waxaan markale saaxiibayaal ismaqal wanaagsan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 26 May ee sanada 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan iminkana saaxiibayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilaabno saaxiibayaal madaxweynaha maamulka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin kale ayaa maanta booqday xarunta wacyigelinta caabuqa COVID-19 ee magaalada Beledweyne isagoo oo markaasi u guurgalay xaaladda guud ee ay ka taagan tahay magaalada Beledweyne ee maamulka gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa ka xog wareystay dhaqaatiirta waliba howlwadeenada caafimaadka xaruntaasi isagoo ka dhageystay baahiyaha ay qabaan waliba qalabka ay u baahan yihiin waxaana uu madaxweynaha u amray in saacadaha soo socota la dhameystiri doono qalabka ee inta badan loogu talagalay caabuqa COVID-19 intaasi kadib madaxweyne Waare ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada AMISOM ee markaasi ku sugan gudaha magaalada Beledweyne muddooyinkii ugu dambeeyayna howlgalo ay markaasi ka wadeen gudaha qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyagoo ka wada hadlay sugidda ammaanka iyo waliba wada shaqeynta maamulka gobolka iyo waliba ciidamada AMISOM waxaa sidoo kale uu sheegay hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare in muhiimad gaar ah ay siinayaan in caabuqa COVID-19 ee deegaanada maamulka Hirshabelle inta badan ee laga taxadiro dhanka kale magaalada Beledweyne waxaa lagu arkay dad hor leh ee qaba caabuqa COVID-19 wararka laga helayo deegaano markaasi hoos yimaada gudaha duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dad badan oo ay la xanuunsan yihiin calaamadaha caabuqa COVID-19 iyadoona deegaanka markaasi ay ka jirin adeeg caafimaad oo loogu tacaalayo caabuqa COVID-19 dadka ayaa ka cabanaya xumad aad u daran dhadhanka oo ka tagay waliba qaarkood oo ay neefta qabanayso balse nasiib daro ma haystaan meel ay iska baarayaan caabuqa COVID-19 waliba goobo karantiil loogu talagalay inta badan dadka qaba caabuqa COVID-19 Dr. Cabdiqaadir Jibaax Ile oo kamid ah dhaqaatiirta magaalada Beledweyne ka howlgasha ayaa sheegay in dadka magaalada Beledweyne oo saameyn ballaaran ku yeeshay fatahaada sidoo kalena dad badan ay u dhinteen caabuqa COVID-19 waxa uu sheegay in badi dadka ay ku sugan yihiin deegaanka Ceel Jaalle duleedka magaalada Beledweyne oo ay markaas u barakaceen isla markaana ay siinayaan talooyin caafimaad si looga hortago caabuqa COVID-19 dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo markaasi faahfaahin ka bixiyay ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay siinayaan dadka reer Beledweyne ee caabuqa COVID-19 ay markaasi ka taxadiraan dhanka kale saaxiibayaal maamulka degmada Cadaado waxaa lagu soo waramayaa inay soo saareen amaro culculus maamulka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay soo saareen amaro ku socda shacabka deegaankaasi kuwaasi oo ku saabsan ka hortagga caabuqa COVID-19 oo dad badan markaasi ay joogaan halkaasi oo ayna qabaan caabuqa COVID-19 amaradan oo ka kooban 3 arrimood ayaa waxa markaasi la faray inay ku dhaqmaan shacabka ku nool gudaha magaalada Cadaado waxaana ay kala yihiin amaradaasi in la joojiyo qaadka qofkii lagu arkana sharciga markaasi lala tiigsan doono in la xiro dhammaan masaajidda ku yaala gudaha magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug ka tirsan in la xiro maqaaxiyaha iyo waliba goobaha la isugu yimaado ee magaalada Cadaado sidoo kalena maamulka magaalada Cadaado ayaa faray laamaha ammaanka degmadaasi in si degdeg ah loo hirgeliyo amarada ku socda shacabka oo ay markaasi inta badan saameyn togan ku yeeshaan amaradan ka soo baxay maamulka magaalada Cadaado ayaa waxa ku soo aadaya kadib 24 saac la soo dhaafay magaalada Cadaado ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 4 ruux oo lagu shakisan yahay inay qabaan caabuqa safmarka ah ee COVID-19 dowladda kale saaxiibayaal waxaa lagu soo waramayaa in muwaadin Soomaaliyeed markaasi lagu dilay qaybo ka mid ah dalka Koonfur Afrika kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa
dalkaasi waxa ay maanta ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa dadka inta badan ka ganacsan jiray ee markaasi ku noolaa muddo dhowr sano gudaha magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika. muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Mahad Cali Yare ayaa u geeriyooday rasaas ay fureen kooxo markaasi burcada xilli uu ku dhex jiray gaarigiisa oo horyaala goobtiisa ganacsi sida ay sheegeen dad kamid ah eheladiisa oo u gurmaday. falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Samora oo hoos tagta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. dilka ayaa waxa markaasi uu ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay laga nastay in kooxo Koonfur Afrikaan ah inta badan dilal kala duwan ay u geysan jireen dadka Soomaalida ku sugan gudaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. dalka Koonfur Afrika ayaa waxa aad loogu dhibaateeyaa Soomaali ku nool, waxaana kooxaha burcad Koonfur Afrikaanka ah ay had iyo weliba jeer ay u geystaan dil weliba inay boobaan hantida dadka muwaadiniinta ah ee ku sugan wadanka Koonfur Afrika. dhinaca kale saaxiibayaal, haddii aynu eegno gudoomiye Cumar Filish waxaa lagu soo waramayaa inuu ku baxay shaqaaqo markaasi ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir Duqa magaalada caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa ku baxay xalinta shaqaaqo dagaal oo xaafado markaasi hoos timaada degmada Daynile ku dhaxmaray maamulka degmada Daynile iyo waliba ciidamo hubeysan oo maamulka degmada ku sheegeen inay markaasi dalboob ay sameynayaan. duqa magaalada caasimadda Muqdisho Cumar Filish ay wehelinayaan ku-xigeenadiisa ayaa kormeeray goobta uu saakay markaasi dagaalka uu ka dhacay, isagoo sheegay in si degdeg ah loola xisaabtami doono cid kasta oo markaasi sameysay dagaalka ka dhacay xaafadda Caaragaduud ee degmada Daynile ayaa sida la sheegay waxa uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose waliba kuwa booliiska Daynile, waxaana ku geeriyooday ruux oo markaasi oo ay ahaayeen kuwa dhinacyada markaa ku wada dagaalamayay. badi ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba ciidamo kaleeto waxa ay ku wada dagaalamaan qaybo kamid ah magaalada caasimadda Muqdisho. arrintan ayaana ah mid markaasi aad inta badan uga hadlaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kaliya waxaa loogu talagalay in ay markaasi ka difaacaan cadowga dalka Soomaaliya, balse badi ayaga ayaa wada dagaalamaya oo ay inta badan isdilayaan, dad badan ayaana israsaaseynta ay adeegsanayaan ku dhinta. waayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgal markaasi ay ku dileen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in howlgalka si gaar ah ay ugu fuliyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Buuloburtay waliba degmada Jallaqsi, tamarkan ay ku dileen xubno saraakiil ah oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. taliyaha guutada 22aad ee taliska qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaashaale dhexe Maxamuud Xasan Ibraahim ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay toogteen 7 xubnood oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab, isla markaana deegaanadaasi ciidamada gacanta iminkanba ay ku hayaan. sidoo kale taliyaha waxa uu hadalkaasi oo intaasi ku sii daray in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab ee inta badan laga fulinayo deegaanada waliba degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. badi xarakada Al-Shabaab waxa ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Hiiraan, waxaana qaraxyo iyo waliba dagaalo horleh ka sameeyaan deegaano markaasi hoos yimaada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. maamulka Hirshabeelle ayaa dhawaan waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba kuwa AMISOM oo iskaashanaya in ay markaasi dagaal xooggan ay ku qaadi doonaan xarakada Al-Shabaab ku sugan gudaha maamulka Hirshabeelle. waxaana lagu soo waramayaa in howlgalladan maanta ay ka sameeyeen qaybo kamid ah degmada Buuloburtay waliba degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ka tirsan ay inta badan ay ku soo bandhigeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. waayahay saaxiibayaal, ugu dambeyntiina haddii aynu eegno midowga Yurub waxay walaac xooggan ay ka muujiyeen dib u dhac ku yimid doorashada dalkeena Soomaaliya, walow inkastoo dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u shaacin in dib u dhac uu ku imaanayo doorashada dalkeena Soomaaliya ee sanadda 2021. wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berling ayaa walaac xooggan waxa uu ka muujiyay natiijada yeelan karta haddii dib u dhac markaasi ku yimaado doorashada Soomaaliya sanadda 2021.
fariin qoraal ah uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay inay ka walaacsan tahay natiijooyin markaasi aad u hufan oo ku saleysan in dib u dhac markaasi doorashada xilligeeda ay ku dhici weyso. Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ayaa dhowr sano ka hor waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayaan in dalka uu ka dhaco doorasho qof iyo cod ah. Tani waxa ay noqonaysaa taariikh, ayuu yiri hogaamiyaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal markaasi jeediyay. Waxa uu yiri dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in doorasho qof iyo cod markaasi la qabto. Muhiimad gaar ah ay u leedahay, ayuu yiri dowladda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan ayaa la filayaa in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya Xaliimo Yarey ay dhowaan sheegto doorashada nooca markaasi ay u dhaceyso, haddii ay noqon lahayd in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay doortaan madaxweyne, haddii ay shacabka markaasi ay doortaan madaxweyne oo qof iyo cod ee dowladda Soomaaliya ay doorasho ahaan ay qabtaan. guud ahaan saaxiibayaal, warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waan idinta anigu Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa la socodsiinayay. saaxiibayaal, waxaan leeyahay warkan warkiisa xiga oo la kulantii.